ururka dhalinyarada Bahakheer ay ku mideysan yihiin dhalinyarada labada beerood ee Baharsame iyo Kheer Cabdi ayaa socdaan xoojinta nabadda iyo isdhexgalka bulsho ku maray deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sool waxayna gaadheen degmada Dharkeengeyo ee ka tirsan gobolka Sool waxaana halkaa ku soo dhaweeyay odayaasha waayeelka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka iyo garadka degmada Dharkeengeyo iyagoo la simug iyo miisaan u soo dhaweeyay dhalinyarada waare waxaa halkaa ka hadlay xubno ka mid ah ururka Bahakheer iyagoo faahfaahiyay ujeedka ay soo gaadheen degmada Dharkeengeyo kala warbixiyay deegaano kale ay soo mareen taas iyo ka badan oo bulsho ah inay fadhido oo waxa weeyaan oo dhalinyar oo waxa weeyaan hadda iyadoo waliba aan dareemi karnay inaan wali xitaa aad loo soo kicin oo aad magaalada u soo shirmay haddana intaas oo qof oo soo fadhiisatay wax Ilaahay loogu mahadiyo weeyaan subxaanahu wa ta'ala anigu laba qodob wali dhalinyaraynahay ilmaada rayaan xitaa odayaasha waa kula talinaya inaynu xagga tacliinta u jeesano maanta horumar iyo developmentiga waxa la isku dhaafo waxaan leeyahay odayaal suuxaafay odayaal muqaddas dhalinyarada lagu socon odayaasha marka maskaxda sameeyo dhalinyarada lagu socon ana dhalinyarada iska waxa uu faasiin karaa nooc faasiin karaa ugu dambeyntii waxaa halkaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada Dharkeengeyo iyagoo la simug iyo miisaan u soo dhaweeyay dhalinyarada ugana mahadceliyay socdaalka ay ku yimaadeen degmada Dharkeengeyo iyagoo kula dardaarmay dhalinyaradu inay halkaa ka sii wadaan hawsha adag ay gacanta ku hayaan waxaana ka mid ah hadaladooda nabadgeel sida ay loogu keeneen maalmo qaadan waana ku deganahay nabadgelyaan ku deganahay wax hadda shaqaaqa wada ama dhalinyaraha hata ama odayaalaha hata shaqaaqa wadana ma aanu arag labada beelood yeeloodii hadda nimanka dariskanahay ee marka hore intuu la kala gaadhay yeeloodii markad u dhex daaqaya ragilaana waa la jooga واتنبضي نبض بلن بينها واركام سيد ورق يمان بلن بينها بلن تانيك كقارة الله قبته ده